dab khasaare baangeysta ayaa maalinimada shalay galinkeedii dambe ka kacay deegaanka buuraleyda waqooyiga magaalada Ceergabo gaar ahaan inta u dhaxaysa Madarmoge iyo Laaga Tabca waxaana gurmad degdeg ah habeennimadii xalay ku gaaray deegaankaasi dabku ka kacay wasaaradda deegaanka xogayaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose iyo dabdamiska waxaana bulsha TV oo deegaanka dabku qabsaday kula kulmay isuduwaha wasaaradda deegaanka xogayaha gobolka Sanaag xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo sidoo kale madax dhaqameedka deegaankaasi oo ku jira daminka dabka ay warbixiyeen khasaaraha uu sababay dabkaasi waxayna mas'uuliyiintani sheegeen in aanu weli dabkan si rasmi ah u daminin iyagoo sidoo kale u mahadnaqay cid kasta oo qayb ka qaatay daminta dabkaasi maanta waxaynu joognaa Xeramooli oo ah caasha jilib sugur shalay galab waxa ka kacay dabkaas oo ka kacay harshuuq oo akan dabadeena ilaahay qool hoosisna gaaray warku waxa halayna soo gaaray 12 habeenimo waxaanu soo baxnay labadii habeenimo waxaanu ku soo baxnay aniga oo isduuya xogayaha gobolka iyo xildhibaanka golaha deegaanka gaadhay ilaa afartii habeenimo ilaa iminka waxaanu ku jirnay oo la dagaalameynay inaanu xakamayno dabka ka kacay harshuuq ee xagaagu oo aad u babinayo dabkii waanu ku guulaysanay majoritigiisii laakiin wali wuu socdaa khasaare wuxuu geystay dhir aad u fara badan oo nooc walba leh khasaare dunyo iyo khasaare dad midna ma geysan laakiin wuxuu geystay kayma aad u badan oo qaaliya oo dhirtii qaaliga ay ku taal qolada gobolka xogayaha gobolka iyo dawladda hoose iyo dadka deegaanka ay si fiican bay soo gurmadeen dadkuna warka ma wada helin qaar baa saaka 10 helay qaar baa 9 helay laakiin qolada u feejig oo ugu dhagan nugul oo wax walba markaba ogaata sida isuduwaha iyo qolada dhirta iyo daaqa oo markii xildhibaanada oo markiiba ogaaday iyo gobolka xogayaha gobolka annagu waqti dambe ogaanay laakiin aad bay shukran ala waajib weeyaan hawshu way ka soo baxeen way xakameeyeen haddana sida la sheegayo dad badan bay dooraysaa had iyo jeer in laga tago wax mashaakil kale ma jiraan kulli waxaan isugu nimi dabka ka kacay deegaanka Xeramooli gaar ahaan harshuuq oo geystay khasaare ballaaran oo waxaan ku raadinay dhinaca dhirta gurmad isuduwaha daaqa qaranka xildhibaanadu sida ay u kala firfircoonayeen mala xogayaha gobolka ka waayelahan annaguna waanu taalkayagii xilligii aan ogaanay waa nimi aad iyo aad baa markaa haddeer xaaladiisu u degan tahay waxaan isla garanay dad 40 ilaa 50 in lagaga tago muddo ilaa 3 casho ilaa 4 casho meelaha gaadhaysa saxaafadda laftigeeda si fiican bay nagala qayb qaadatay gaar ahaan barkhad nagala qayb qaatay bulsha TV cidkii kale ka qayb qaadanaysana waan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan arrinkaasi wali uu taagan yahay dabba qarxay dabkaasi خسارة وين مجي خسارة ضد الدنيا تونا مجيسن لكن آدي وحويها علي درتي كيمه وأنا الصعداء ضبكو وحال مودا وحويان در قلالنا ودر خيمة سدا وبقتي مايو وحلقة جاية عيدا بدن تذكر وجه اللي هي دلكي سين وحكي قبته هالخ واحد من محلته أفرتي waxaana loo sheegay dabka qarxay abaarakoodii ilaa labadii habeenimo markiiba waxaanu ka soo baxnay Ceergabo waxaanu mahad celinayaa baro saabka gobolka Sanaag iyo maayir ku xigeenka degmada Ceergabo si fiican oo la soo shaqeeyay sidoo kale waxaanu mahad celinayaa jabhadda uu hogaamiyo Caare oo aanu nimi iyagoo gacanta ku haya oo dabka ku dadaalaya xakameentooda waxaanu mahad celinaynaa odayada deegaanka iyo dadka deegaanka sidoo kale waxaanu mahad celinaynaa bulsha TV oo isna noogu yimi iyadoo ay baqtiintii socoto kolley dabkani wali wuu socdaa arrinkiisuna waa sida isuduwuhu sheego 7 casho dambe waa la joogayaa waxa shalayto galabtii dabka kacay tuulada hoosteeda iyo dusheedaba wadada xaggan ka badiyaysa marsanka ilaa qoolka iyo xaggan wadada ka galbeedaysa harshuuq la yiraahdo ee aadka u dhirta badan run ahaantii dhir badan baa halkan ku gubatay dabku khasaare badan buu sababay oo aan mid nafeed iyo mid xooleed iyo mid toona aan ahayn laakiin dhir badan baa ku gubatay ilaa dhulka gubtay ee aanu ka hawlgalay baqtiina waa ilaa 20 goobood
ha kala cuslaadeen meel walibana ay ilaa 50 mitir meelaha ay leegtahay wali dabkii waana baxayaa intii badneed waa baktiinay gurmadada intii kalena halkay joogaan maamulka heer gobol oo uu barasaabku ee gudoomiye uu yahay iyo heer degmo oo maayir xigeenka uu joogaba xoog bay uga hawlgaleen xalay labadii baan magaalada ka soo baxnay 4tii habeenimo aan halkan nimi barkad maxamuud geedi bulsha TV wararka gobolka Sanaag